السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهيك قالي جاي كحرن جنة كنا عين مقبات سودو هذا أصحابي سبسكرايب ده هدات كعصب تهي جنباليل كفورو سيئو وصدعو وحوالبا لايك شير كومنت نا كسي ما فهمتين غير الله ينسيه أصحابتي غني جعلها مرولبا إلهي بان كلناهي كسكو شعبكاغا ayaa wax lagu siiyahay ma fahanteen marka ma sha Allah ilaahay horta xumeen anaga haay inta xun iyo xanuunada hadda socdo ilaahay subhanahu wa ta'ala naga badbaadiyo inta u jiiftana ilaahay ha caafiyo ma fahanteen inta dhimatana caafimaad inta dhimatana aqoon jannatul firdaws iyo dambi dhaaf ilaahay weydiinayna in asxaabay waxaan ka sheekeen rabaa musqulaha maaragtay musqulaha markaa galaysiin waxaa fiican inaad ducaysato oo duca akhrisato oo lugta ducada oo maaragtay musqusha marka aad galaysid inaad akhrisatid teeda kale lugta bidixda maaragtay aa hormarinaysaa lugta bidixda aa hormarinaysaa inta xaajadaada aa gudanaysidna ma fiicna inaad hadashid ma fiicna inaad maaragtay teleefon halow aa ku tiraahdid استراحت قف مهمة كسوعة أو كلا ترتيب وهذا اللي حاح وحاس دم لما أقوله مسقش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تيم بعد كن مفهمتين أو يهودي تين يهودي أو ضدك وحن كإيري هالكاس أقوله مفهمتين يا ضد قاعد كون وحكة لو قرام حس جوجي ضل يراي وإني الشيء يا مسقولها قطر واي مفهمتين يا gabriel oo hadda waxaa darsna la ah mutaqaana musqushay gashay waxaan ku iri musqusha markay gashay ayada hadda hal mar qaylinaysa ay ka soo baxday waan yaabnay waa fiirinay waa isku naxay waxaan sameeyay ana qof duu qayliya wax ka dhex qayliyana waa carraab jecelibo ilaahay subhanahu wa ta'ala caafiyo markii loo wada tagay quraana lagu akhriyay quraanka lagu akhriyay waxa ka dhex qaylina musqushay ka soo raaceen musqusha ay ka soo raaceen mi fahanteen musqusha iyo qashinka iyo meel kasta aan maraysid hatta ducada daadana qoorina a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim de gal inta ku jirtina ha hadlinbo innaba illa haajadaada aa ka gudatid ha hadlin ma fahanteen jinni waxaa jiro oo meesha ku cadaaban oo ku xirxiran oo meelna aanan uga bixin banaankaas xitaa ma u soo baxo waa mid gooni oo musqusha la dhex fadhiyo idinka ma aragtiin laakiin asaga waan ku mashquulsan yahay ma fahanteen yaa ilma meela iblaayi iyo jinni oo luqluqyada daadsada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ma la dhahaa marka aad lugta as geli rabtid waa la cudbileystaa kadib lugta bidixda la geliyaa musqusha midigta lagu xijiyaa xaajadaadii waxaagii dhan markaa dhamaysatid hatta markaa qabaysanaysid ma aragtay yaa dharka tartiib aayra la iskaga bixiyaa xoog inta dhahda oo meesha saarta qubeyska isku soo buufisay saas lama rabo koo waa galaysaa markaa gashid oo lugta bidixda aa qaadid oo gashid kadib midigta aa ka daba qaadid xaajadaadii waxaa gudaleed gudatid markaa qabaysarad waa la weyse qaataa marka horeba waa weyse qaadanaysaa markaa weyse qaadatid weysadan waxaa ka horeeya bismillaahi raxmaani raxiim aa leed bismillaahi raxmaani raxiim markaa dhahdid waa weyse qaadanaysaa oo sandaarsanaysaa wajiga dhaqa gacmaha adiga weysada waa taqaaniin linima sheegaayo markaa soo weyse qaadatid kadib waa qabaysanaysaa mi fahanteen markaa qabaysatiin tartiib aayar dharkiina soo xiranaysiin tartiib markaa soo baxdid lugta midig aa soo hormarinaya bidixda ma ahayaa midigtaa soo hormarinaysaa midigtaa soo hormarinaysaa bas aayarka waa soo baxaysaa ma fahante salaadahaagi iyo waxaagi galaysaa maasha Allah salaadahaagi tukanaysaa maasha Allah laakiin walaalayaal oo musqusha aa ka dhex qaylinaysiin ama aa ka hadlaysiin joojiya ma fiicno xataa Allah magaciisa ma ku xusu kartid ma soo qaadi kartid waa meel shaydaan markaa galaysid aa laga cudbileystaa lugta bidixda lugta midigta waxaaga gudane tartiibko aa ka soo leeda mi fahanteen yaa waayo dad badan oo waxaan arkay
musqusha markay ka dhex hadlaan weliba ilmaha u badan ilmaha u sheegaya akhay ilmaha hala baro adaabta musqusha la gelaayo maaragt hala baro iyo ka dhex hadlin ilma yar tunjiga iskaga fadhiyaan micnaha tunjiga musqusha iskaga fadhiyo waxaa jira maanta dad ka dhex qaylinayaan iska sheekaystaan waa ciyaal yaryar laakiin waa loo waaniyaa waa loo sheegaa tartiib ma fahanteen ha ka dhex qaylina dheh hooyasaan dheh u sheeg lugta bidixda hormari midigta dambaysii ducada la akhriyo bar ma fahanteen waayo jin yuhuudi ah ayaa degan ilaahay subxaana wa tacaala hanaga qabta shaydaan oo dhan iyo jinni iyo il iyo sixir intaba allah hanaga qabto subxaanahu wa tacaala qofka qof dhibana asagay u taalaa ma fahanteen sixirka xitaa laftirkiisa wax wanaagsan ma ahan qof muslim oo walaalka ah inaad dabar goysid xaaqashid waa waxun hadda walaahi inaa aragteen in kale ma ogiye cunuga yaroo oo sanka maaragtay dunta hooyadiis ay leeda hooy soo jiid hooy soo jiid hooy soo cunug xanuunsan inuu yahay waad aragteen oo weliba in muddo ah xanuunsanaa oo ka muuqata jirada ma fahanteen waxaas waa sixir ma fahanteen wax fiican maaha jinka laftirkiisa sixirkuu soo qaadaa qof kale markii la waayo loo dhiibi jinkaas soo haadaya uu qaadanayaa uu soo gelinaya guryaha iyo meelaha iyo uu soo geliyaa ilaahi subxaana wa tacaala ha ka magan galnay qofka qof islaama dhibaayana asagayba aakhiradiisa u taalaa wuuba gaaloobayba kaas shirki aan caadi ahayn ayuuba ku dhex jiraaba ma fahamteen waraafaadka iyo balaayada iyo hebelow fiiriska iyo waxa jinina halayska daayo dadow ma fahamteen wax fiican ma ahan ilaahay baa la shariigtamaysiin marka sheekada jinka ahayd marka jinka musqusha halaga cudbilaysto ilaahay baan ka magan galnay ma fahamteen walaaleyga qaaliga maanta waxaan arkay anaa yaabo gabadhii yareed waxaan ku iri 30 qof ku xoog badisa cirka ana waaba carar guriga dhan ka baxay big baan dhahay ma fahamteen waa gabadhii 8 jir ah wax fiican ma ahan ilmaha hala tarbiyeeyo ha lagu baro musqusha aadaabta loo galaayo yaa marka walaaleyga qaaliga wax walba in la wadaaga ayaan jeclahay ma fahamteen qofka walaalkayga aniga wuxuu igu dhaamo waan ka dhageystaa idinkana iga dhageysta waxaa laga yaabaa dadka badi kulligood inay wada yaqaanaan dad aa garanayna inay ku jiraan meeqa arka wallahi musqulaha ka hadlaayaan oo ka dhexeysayaan iska qabaysa shayddaanka intaas wuu ku fiirinaa saas uu leeyahay jinka saas uu leeyahay qofka hadlaayo ka helaabo qofka ka dhexeysaayo dadaa xitaa xarka moobeelada ku galaayo oo moobeelka ma aragtay heese dhagaha ugu jiraan yaa heesii dhageysanaya uu iska xaajoonaya iska ma aragtay sidii qol inuu ku jiro oo kale qol ma ahan meesha waa golo shaydaan laga cudbilaystaa wasaqdaa lagu talagalay in lagu shubo yaa marka meelaha qashinka sidoo kale markaa qashin ku ridaysid waa la cudbilaystaa acuud billahi min ashaytaan rajiim aan dhahaa ilaahu jin iyo ma aragtay adaan kaa magan galay meesha saas qashinka loogu shubaa aniga waxaan ka dhaamugowaa weligay ma iloobilaa haddana ha iloo siir walaa qashinka markaa tuuraayo anaan bacd inta saa ugu xiro basta binka aan ku ridaayo intaan ku ridin waa sii cudbilaystaa ani acuud billahi min ashaytaan rajiim aan intaa sii socdo kadib aan ku dhex ridaa waxaan ku ridi lahaa waan kasoo laabanayaa badanaa dadka jinka waxaa kasoo raaca qashinka musqulaha marka maqribadina markii la gaaro kale waxaa la iska shitaa xabad sawdo iyo waxaa la shitaa xabad iyo quraanka ilaahay ayat kursigan waa la shitaa albaqara la shitaa ya albaqara la shitaa marka maasha Allah waxa shaydaan dhan inay soo dhawaanayaan ku dhahay mi fahanteen marka walaaleyga qaaliga sharafta lahay waxaan ka waaninayaa musqusha idinka ooran iska rajiimi shaydaanka inaanan gelin qosmaanta waxaa arkay bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay adaan ka magan galnay rabbi raxmaano ilaahay baa wax walba ma aragti ilaahay subxaanahu wa tacaala baa wax walba u jeedo jinkaas aa u jeedi dadka dhibaayo oo kan ilaahay baa caabuday dadkaa lagu salada asagana ma fahamte marka walaaleyga qaaliga halkaan ayaan oga sii baxayaa sheergareeya si ay walaalo kale ay u arkaan walaashii naciima ugbaad hadde cid kale ma ahan na'dana ka siiya mi fahanteen marka hana la isku soo duceeyo
rabadaana soo dhow ilaahay khayrkiisa hana waafajiyo cimri dhidhic baa suuban allah isku kaahaysimo inta dhimata allah u naxariisto cudurkana ilaahay ha naga qabto masiibada ilaahay ha naga dulqaado allah ayaa naga dulqaadi karo ilaahayga raxmaanka oo kariimka ah ayaa naga dulqaadi karo ma fahanteen magacyada ilaahay aan kusoo afjarayaa allahu arraxmaanu arraxiimu almaliku alquduusu alsalaamu almu'minu almuhayminu alcaziizu aljabaaru almutakabiru alkhaaliqu albaariyu almusawiru alqahaaru alqahaaru alwahaabu alrisaaqu alfaatixu alcaalim yaa rabbi yaa raxmaan yaa kariim yaa allah ilaahow wax xun iyo shaydaan ilaahow rabbiyo adaankaa magan galnay soo sax maaha aamiin dhaha yaa rabbi yaa raxmaan ilaahay subxaana watacaala umbahee jinni iyo insi iyo dadka wax falaayo dhan ilaahay baa ujeeda subxaana watacaala marka halkaasaan kusoo gabagabeynayaa walaalahayga qaaliga maasha allah